Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ayaa bilaabaya dood adag oo ku saabsan doorashada taalo Garbaharey xarunta gobolka Gado kadib markii Jubbaland ay shaacisay in wax doorasho aysan ku qaban karin magaaladaas. Maamul goboleedyada ayaa waxa ay u dareereen in ay si rasmi ah u hirgeliyaan deegaan doorashadii labaad, hase ahaatee Jubbaland ayaa sheegtay in aysan tagi karin magaalada Garbaharey. Sababaha ugu weyn ay Jubbaland u cugsanayso go'aankooda ayaa ah in ciidamo isugu jira nisa iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee duufaan ay dowladda federaalka Soomaaliya ku daabushay magaalada isla mar ahaantaana aan ammaankeeda la isku haleey kareynin. Maamulka magaalada iyo guud ahaanba kan gobolka Gado ayaa diidan in xubno ka socda Jubbaland ay ka degaan garoonka Garbaharey. Axmed Madoobe wuxuu doonayaa inuu qabto doorasho u madax bannaan yahay, laakiin fila Soomaaliya ayaa doonaysa in iyadu ay maamusho kuraasta taalo Gado. waxaa jira wadahadallo kuraas kala bedelasho oo fashil ku dhamaaday xilli madaxweyne Farmaajo uu kuraas u raadinayo saaxiibadiisa maadaama qaarkood kuraasteedu taalo magaalada Kismaayo. Kuraastaas waxaa ku jira kursiga Cabdiraxmaan Dheere oo ah shakhsi si weyn ugu dhow madaxweynaha kana mid ah xukuumadda isla markaana kursigiisu yaalla Kismaayo. Wararka la helayo ayaa sheegaya in Axmed Madoobe uu doonayo saddex arrin midkood: kow, in doorashada lagu qabto Kismaayo oo meesha laga saaro Garbaharey; labo, in lagu soo wareejiyo maamulka Garbaharey isla markaana la keeno reer Gado oo ogol Jubbaland iyo maamulkiisa; iyo doodda saddexaad oo ah in doorashada Gado lagu qabto magaalada Ceelwaaq oo ah magaalada kaliya ee gobolka Gado ka tirsan isla mar ahaantaana uu ka dhisan yahay maamul hoostaga Jubbaland. hase ahaatee dooddaas ayaa meesha ka sii baxaysa. waxaase jira qorshe afraad oo wada Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya. madaxa xukuumadda oo mas'uul ka ah doorashada ayaa doonaya in Jubbaland qabato doorashada kuraasteedu taalo Kismaayo isla markaana dib loo dhigo tan Garbaharey. xogtan waxaa bixiyay guddiga doorashada heer federaal oo sheegay in haddii aan xal siyaasadeed loo helin arrinta gobolka Gado ay qasab noqonayso in doorashada dib loogu dhigo. haddii ay buuxsamaan kooramka xildhibaanada dooranaya guddoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha, looma baahnaa doono kuraasta Gado haddii aanan xal siyaasadeed laga gaarin, ayuu sheegay afhayeenka guddiga doorashooyinka heer qaran oo la hadlaya BBC-da. qodobkan waxaa si weyn u taageersan mucaaradka oo ogsoon in xubnaha ka imaanaya Gado ay noqonayaan kuwo ku dhow madaxweyne Farmaajo oo aysan wax cod ka heli doonin. Axmed Madoobe ayaa sidoo kale u madax bannaanaan doona kuraasta Garbaharey haddii dib loo dhigo. hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa si weyn uga soo horjeeda in isbeddel lagu sameeyo heshiiskii doorasho iyo in dib loo dhigo doorashada kuraasteedu taalo Garbaharey oo si weyn uga tashanayo. Garbaharey ayaa muddo dheer loo arkaa inay caqabad ku tahay doorashada dalka ka dhici lahayd, waxaana sabab u ah madaxweyne Farmaajo iyo Axmed Madoobe oo isku qabtay. maamulka ka jira Gado ayaa hoostaga dowladda dhexe gaar ahaan madaxweyne Farmaajo. taas waxay meesha ka saartay nidaamkii federaalka ay Jubbaland uga tirsanaayeen. haddaba ma laga yaabaa in Gado ay noqoto caqabad kale oo hortaagan doorashada?